بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد waxaan maanta idiin wadnaa ciwaan aad iyo aad u wanaagsan waa ciwaan marka aragtaan xasha aad oran doontaan insha allah waa ciwaan qiimo leh waa ciwaan magaciis markii lagu sheego inaad daawatid aad u jeclaa doontid insha allah waxaa la magac baxay 9 camal waxay kaa yeelaysaa رفيق النبي عليه الصلاة والسلام جنة ما دونيسا إن النبي عليه الصلاة والسلام جنة كل رفيق ذو ما دونيسا إن النبي أدواتي صلى الله عليه وسلم أو كقول ستيد رفيقي سا كقول ستيد أركتدي سا كقول ستوجي سا نور كلنا أركتد جوابته وها وسكعده وبلاء هذا وسجال كان عمل ayaa rafiiqka yeelayso nabiga calaih slat slam rafiiqiisa fi ljanna jannada sagaalka camal sheegi doonaa haddii alla idmo kow camalka koowaad waxa uu yahay ee rafiiqkaa dhigaayo rafiiqa nabiga calayh salaatu wasalaam maxabatu nabiy sala allah alay wasalam inaad nabiga jeclaatid oo maxabadiisa lagaa helo ayaa rafiiqkaa dhigay oo nabi sal slam rafiiqiisa yeelayso waxaa jira xadiis laga wariyay cabdullah bin mascuud radiyallahu anhu uu leeyahay nin baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam markaas buu nabigu weydiiyey wuxuu rasuulka ilaahayow kayfa taquulu fii rajulin axabba qowman walam yalxaq bihim ka waran buu yidhi nin qoom jeclaaday ayaan haleelin oo camalka samayn kale aan samayn wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almar'u maca man axabba qofku wuxuu ahaanayaa qofka uu jecel yahay la jirkiisa ayuu ahaanayaa maasha allah maasha allah cajiib haddaad nebigaa jecelshahay calayhi salaatu wasalaam si dhab u jeceshahay oo jecelkiisa aad ka run sheegtid rafiiqiisa miciisa ayaad ahaanaysaa ilaahay idinkiisa kow qodobka labaad camalka labaad wuxuu yahay rafiiqa nebiga kaa dhigayo calayhi salaatu wasalaam kasratu salaah wasujuud lilaahi tacaala inaad salaada badisid sujuud aad badisid ilaahay u sujuudsan tahay oo salaad ilaahay u tukanaysa aad u badisid qodobka labaad waa rabiica bin kacab al-aslami radiyallahu anhu yaa wuxuu yidhi nebigan khaadim u ahaa calayhi salaatu wasalaam waa la baryi jiray weysada u keeni jiray dantiisa u oofi jiray khaadim ad waa garanaysaa khaadimkii nebiga ahaa ayuu yidhi sal allah alay wasalam markaas baa hadda nebigu aad garanaysaa wuxuu ahaa jiray qofkii wanaag u sameeyo wuu abaalgudi jiray dadkan uu ku boorin jiray qof haddii wanaag loo qabto inuu abaalgud bixiyo wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam sal oo yidhi wax weydiiso maadaama aad ii khidmaysay si aan kugu abaalgudo waxaad jecesha weydiiso yidhi wax weydiiso yidhi waxaan dhaho yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaana ku weydiisanayo yidhi inaad jannada kugula rafiiqo allah akbar maxaa yeele haddii maanta lacag la siiyo ama wax kale adduunya la siiyo waa dhammaanayaan laakiin jannada oon dhammaanin أبد الآبدين ولي تاغنانيس النبي صلى الله عليه وسلم جنة أعلى المنزل أوياي الله ربيعه وفرصة كفاديس وحنكو يدسنا بو رسولك الله صلى الله عليه وسلم إن جنة كولا رفيق أنكو يدسنا بو مركاسو يدو وحكا الأبديسو وحكا المجران مياه مايا والديار مرك النبي أساير صلى الله عليه وسلم أساير سماه والله كبحي وحيري فأعني على نفسك بكثرة السجود نفط يوكل ما يوري سجود فربضان الإمام وهاي تاسو الديار ولو بلن قاضي هاي سجود بدي أدون حديث مسلم صاري مركا سجود بدي حلول صلاة بدي سنوين فرض كل ذلك قف سنوين كبصدو النبي ولا رفيق يا عليه الصلاة والسلام ما شاء الله كصدحات كاديغايو إن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق جنة كل نقطة وطاعة الله ورسوله إلى أضيع رسولك أضيع صلى الله عليه وسلم قف رسولك أضيعه نبي كل رفيق يا جنة محل ابن عباس وحال يوري نبى النبي عليه الصلاة والسلام مركز بويري رسولك لا يو أني وأن كجعله يري أني وأن كجعله يري مركا فكروا يري حقوق يري
haddii aan jannada aan galo markaa ku soo xasuusto maxbada iga tabbaat waxaan xasuusanaa yiri haddii adigu jannada aad gashid manzilka ugu sarreeyo ayaa tegaysaa yiri allahu akbar hadda anigana haddaa jannada galo ilaahay jannada igeliyaba oo jannada aan galana waa kaa manzil hooseynaya hoosaa tegayaa haye arrinkaas oo dhibayaa yiri waxaana jeclaa yiri inaa jannada kula rafiiq oo macaayo ahaado waan jeclahay nabiga sal alay wasalam waxaa uma celin marka jawaab ma siin ilaa ilaah oo soo dejiya aayadda qur'aanka ah waman yudic illaaha waarasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasna ulaa'ika rafiiqa qofkii ilaahay adeeco rasuulka adeeco kuwaas kuwii ilaah u nimceeyey macoodii ahaanayaan oo nebiyaashii ah sidiiqiintii ah shuhadadii ah saalixiintii ah suuratu nisaa qodobka afaraad waxa uu yahay xusnul khuluq dabeecadda wanaagsan rafiiq nebiga ka dhigaysa calayhi salaatu wasalaam maa sha allah haddaad wuxuu nebigu u yidhi sal ly slam dadka ani majlis iigu dhow qiyaamaha waa kuwa haddee kuwa dabeecadda wanaagsan oo dabeecadda wanaagsan sameynaa waayo qodob shanaad waxa uu yahay kafaaratul yatiim qofkii agoonka kafaalo qaado oo agoonka kafaalo qaado nebigu rafiiq la noqonaya calayhi salaatu wasalaam watii nebigu uu yidhi ana wakaafil yatiim أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا أنا يقف الجنة قف أقوم كفالة قاضه صار الجنة كنا هاي لواس قعمود لواس فرض ونبي تاج عليه الصلاة والسلام ما شاء الله عمر كل حاد وحوي هاي كاديجا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم قف كي قبلها كوريو برباريو دينته كوب برباريو سفي عن وناجو إحسان في عن أسمايو قف كاس جنة النبي كل رفيق عليه الصلاة والسلام سيدي حديث كي أنس بن مالك ورناي أو أهابا ما شاء الله مركي قفكي لا واحد وقال ولا الأرض أما لا قبل ضلي وناجيو يسيف وناجيو أنا يسجى كهاتين كنا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ما شاء الله كتضاد وحوية عمر كتضاد رفيق النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك النبي الرمي أنا أركن اسمع الرمي وأنا وكلاوة أنا ما أنا أركن عليه الصلاة والسلام سوما قارين دانا ورمي سنة ورميني دي مركي رميتاس لا يرون شيء والنبي jidkiisii la qaado nabi sal slam miciis ayaa lahaanaya alayh salatu wasalaam sida nabiga ku bishaareeyeyba sal alla alay wasalam qodobka sideedaad wuxuu noqonayaa inaa badisay salliga nebiga sal alla alay wasalam qofkii salliga xabiibka aad u badiyo nebiga sal slam jannada kula rafiiqayaa wuxuu nebigu uu yidhi awla annaasi bi yowma alqiyaama aktarum calaya salaah dadka ani jannada iigu dhow qiyaamaha kuwani iigu dhow yaa waa kuwa salliga badiyo marka maa sha allah marka kuwaas dadka ugu dhow qiyaamaha كما عباية حوض النبي صلى الله عليه وسلم كعبايو ونبي قعنتي حوض كوجا ورابنايو كسجالات وحوية دعاء بديسيد وأد أدعي ستمر والباء وإلهي كبرت إن الجنة كارديو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم كاردينا وهذا هي إن شاء الله تعالى مركا سجال كاس عمل بحكاية ليان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لو ولا الكا وكود ذيال نقول هذا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.